qabo in gabadhii uu qabay ay ceejisay oo ay dishay ka hor inta aysan ceejinina ay siisay sun ama waxa kale naagta ninkeeda ceejisay maxaa ku xukumi lahayd naagta maxaa la togtaa dhilaad masahal caafiyaad dhilaad tan waa shirkadeena qabilka faanina igaanu daadina waan isku meysana. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دقالي واحد نرجع عندك أحمد خومن تريتا مقالك السنة كنت داودون تان جماعة وناكسنا عندنا وجوهرن بابديت كين نص سبسكرايب سيرتو كل مقالك أنا كري وما سنتسود هذا واجي بريوا دا صومالي كذا تياب أيوكو بريا حتى وصلت كلام كل أفضل أتكلم ولا يابان دمركي يرجع إسقورس لما أنا ها وجرجودا متقانا دقيلا أيقوس لما أنا هنقطة طويل حاسكي سدلو سيد كي جو كلا كي جرجرة أيو كلا هذا واحد على شلة على كله كدي مركي قبل أنا أوجدان عيجي كنت شيء نكى أيضا قوي أو عسكري سيدو كله مقال كوالله قضب كدمبنا وهاس وساق هذه ولكن الفنان كدادير مانك تيجي هاس تاس أو هاس ودني سيدو كله قيبتكم تيجي صار دقيقة فنانك درنسية from سكونس أقرأ هاس تاس نصور داودا وهاس كالس هيقدر صومالي كجرتو لكن مركو دعنا أوصل نقول qoftan cabsi waay nin ceeji ku dishay ninka ay dishay sawirada ma soo qaadan karo oo YouTube-ka ima ogola laakiin hal iyo laba waa kana hadaba adig ma aaminaysaa markada nin raga ayaa dumar ama qof haweeney ah ceeji ku tiri kartaa qoftan marka hor ninka waa jilcis warbixinadin sida muuqaalka daawan ka hor dhacda sida aan xogta ku maqlay waxa maqlay inay sun siisay markay sun siisay oo ninkii u jilcay oo mataqaana oo suuxay ay u fududeysano markaas si ceejis tikidkii u fududeysay aakhiro yaani qofka loo korbo dhima laha oo sunay wasiisaw maadaama sun ay siisay ma sugine way si ceejisaw ayado toos safarka aakhiro ina ku fududeeyo waxa leeyahay ku dhawaad 30 lamaane oo isguursanay ayaa guurkooda dib u dhigay sanadkan maadaama uu yahay sanad la yaabkiisa wato isla markaana dadkii lamaanaha ahaa ee ever iska dhigeen waxa la yaabaneen ninkii laagtiisa ku waay oo muqdisho dalkeena oo la maxkamadeero waxa la yaabnay sidoo kale mid kale oo xaaskiisa gobol u jarjaray hilibkeeda saa u jarjaray waxa kale oo la yaabnay gabar ayadana ninkeeda xubin taran ka jarta hadana waa tara mid ninkeeda ceeji ku dishay marka Soomaaliya la yaab iyo ama kaaga yaab war waagi bariyabo yaab in naxdin oo lagu bariyaa yaan aaminaa marka yaa aaminaa waa u jeedine lamaaniis isku galayaane yaa aamina dad badan waxa la leeyahay arooskooda dib u dhigan ayagoo cabsi iyo walwal ka qabo in dhacdooyinkan oo kale ay ku dhacaan inta aan heesta walaalkeen maanka TJ oo soo qaaday ee wadaniga araash ka bixin waxa la daawatiin muuqaal ku saabsan dhacdadaas isku soo noqonayay qaabkee ayaa u dhacday xogta ugu dambeysay ila daawada qofta dambiilaha waatana waxay ku jirtaa gacanta ciidanka dawladda ku jirtaa waana la maxkamadeed doonaa kulay tiirkiisu waxa dhilaa kii xaaskiisa guwaa iyo tambo hal subax hala togto hal isku ag xira xataa si loo waayo nin dambe xaaskiisa dhibaateeyo iyo gabar dambe oo ninkeeda dhibaato u geysata maxamed cismaan waxa uu ahaa 18 jir ahaa askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu deganaa xaafadda badbaado degmada wadajir ee gobolka Banaadir waxa la sheegay in dhawaan uu aqal galay maantana waxay ahayd maalintiisii saddexaad balse waa uu dhintay waxa la sheegay in qaybo kamid ah jirkiisa gaar ahaan dhuunta uu ka muuqanayo xarig lagu ceejiyay dadka ayaa waxa ay sheegayaan in laga shaki qabo in gabadhii uu qabay ay ceejisay oo ay dishay ka hor inta aysan ceejinina ay siisay sun ama waxyaabo kale oo la mid ah sidaasna ay ugu suurta gashay inay ceejiso kadibna uu geeriyooday waxa la tilmaamay in saakay muran uu soo kala dhaxgalay labadooda qaar kamid ah dadka deegaanka ayaa ugu warramay Shabeelle wixii indhahooda ay ku arkeen iyo geerida marxuumkaasi dhacdo xanuun badan xaafadan ka dhacdo dariskayna walaashayna maamadan wiilkeeda daraad dhow soo guursado gabadhan wuxuu yiri gabadhan daraad dhow soo guurso algu nikaaxe maanta lab saddex oo dhima doono waxa la yiri saaq salaadi waa la soo kacay waa murmeen wax yar 4 sac waa la isla quraacday maamad meel kale gur kale tacsiyo meelahaas ka dhacay aadi meeha anagana ku kulungnay waa isku salaagnay meeshii aan fadhiisana mar tacsiid ku gudani hadda anagoo fidhano waxa li wiilkaada waa suuxay soo orod maxaa suuxoog soo nadiif aan soo dhaafay suuxoog maxaa ma ogyahay tir haddii meeshii soo orodno inta imaanay cunugi meed baayba
haye waxaa lir maxaa dhacay maxaa khalaafo dhexdiin ka dhacay ninkan meednimo ma ku og jiro ma ku og ma iga xanuunsanin maxaa dhacay maxaa siisay ninkan soori caanan siiba misl cuntaan miskaligiisaan sii soorta caana hal mar afka gashto dhunji woo dhaafi woo istaa woo dhacyele ninkan maxam ciilo liira walaalkeen hor dhacdo xanuun badan ama aan ka dhacdo beriga maxaa lagu sameeyay marka wixii lagu sameeyay ceejin way ku taalaa ceejin way ku taalaa soora la siin waa dhahoosa soorna way ka weynta ceeja firata ku taala dii dharka laga siibo banaanka la soo bixiyo deeridan la keeni wiilka ceejaaba ku taala dhaawaca ku yaal xeraga inta aga xiranbo xeraga dhax gale intan waxa aga tal wax oo koronto lagu qabta amal waa dibab ku yaal labadoodana qolka ku jireen qof kale bin aad aabis ma joon hooyis ma joon xaafad ay ku jireen gabadh iyo wiil kale ku jireen asa madax fiiqan laakiin hadii la isku fiiriyo sanadood jin waa laaka asiga waxaan ku qiyaasa 19 iyadana waxaan ku qiyaas karaa 16 jir ama 17 jir ay tahay iyada dhibkaas dhacay dhacdaas xanuun badan ka dhacday Allah u raxmado igaarkayna maxamed ciilo aabiisa maxamed ismaan kawiira liira hooyis maan axmed nuura liira ilaaha uu naxariisto maxamed ciilo beriga geeriyooday dhacdaas naagtiisa ku sameystay la dhahooya maxamed ciile maxamed ciila liira yaarka maxamed ismaan kawiira liira aabiis ismaan kawiira loo ciiloon waa loo kasaa aabiisa gabadha ma barananba anaga faadama liiraal dhoy aabeed ta manaqaan hooydad manaqaan waa la keeni aroos cusub leba 3 maalin la isqabaab maanta ninkiyaaba geeriyooda iida ma dishay wax kala mar tii rabba miya ma ogni laakiin iida sooran si aanay dhoosa kadib joogo ka dhacay dhaadida horta mad badbaada maanta waxa ka dhacday masiibo badan oo culus ah oo jiro maliirado hawar maana madnuur la dhaho iyo odayga la yiraahdo ismaa maxamed kabiir wiilkiis la yiraahdo maxamed ciilow oo ah askari dawlad ka tirsan oo soo guursaday gabar Soomaaliyeed oo soo dafay oo guri keensaday aw joogto 3 habeen oo maanta afar iska meediye ma fahanti oo gabadhii iko isdagaalanay sheegay sidii hadda ananka ma joogin laakiin hoqdaan si hadda uu ogaanay in labadooda isdagaalan oo cilad dhexdooda ka dhacday oo hawayda iyo tii aaba ay ka kala tageen meesha gabar yar oo dhuucil ah oo 12 jir ah oo banaan dhar ku dhaqayso ikna guriga ku xareysan gabadhaas marka hadda oo ismeed as noqday gabadhii oo wacaysa adoo waxay dhahay wiilkaada waa suuxay amaw adiga waxay dhiri waajimad hadoo yimid waa arkay wiilka meedwa say ku dhacday ma sheegi kari markaas hadin lu kacay gabadhii lu kacay cilada ma dhac kartay say ku dhacday guriga adiga joogtiin wiilkan say isku dhimi karaa waxay tiri aniga wiilkan saaq waa isdagaalnay waxa iri guriga aadaa guriga ma aadayso da guriga aadayso ani dunida ma joogay waa isdilaa oo ii dhahay ma xad ku sameeyay warisaake waxay tiri sooraasi laakiin fikridan waxay tahay ninkaas oo 20 jir ah ama 18 jir ah in oo naag oo dumar ah ay kamid hesho ay disho maxrig ay geliso faa'iido ma ahan marka wixii dhacdoon waa dhacay xiriga ka muuqdo tan kala maad waxa fikridan ay talaa ina kiishun uu buufisay oo sanka ay ka saartay suuxisay oo kadib xirigaas inay gelisay ya marka tacsida saadacda maanta ilaahay hadda midkiis xagee anigu meedkiis waxa loo qaasay hidhiya loo qaaday idina waa xiran tahay fahanti ciladaas jirta marka inta iska dhintan sawir ima alla siiyo meedka marxuumka ayaa waxaa loo qaaday xarunta dambi baarista ee CID-da halkaasi oo lagu hayo baaritaan ku aadan dilkiisa waxaana sidoo kale ciidamada ammaanka dawladda federaalka Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen haweeneydii uu qabay taasi oo ilaa haatan dadku ay sheegayaan in uu ku jiro tuhun la xiriira in iyadu ay dishay waxa maqli jiray cabsi waay hadda guurka cabsi waay qof dambiyaal isku aamin ilaa ay xiisadaan dagaan ha isku guursan faaraxow xaliimo sidoo kale ha isku guursan warnag aal iska dhig lamaanihi waa isbaabiyeen sanadka war maxaa khaldan 24 waaba sanad inkaaran be waayahay bal dhacdada ka soo bixayna ninkaas marxuumkaani alla yaa raxmi ilaahay u naxariista leenahay وعراش كبحنا هسه وسوق هذا فنان كدا ير الفنان مان كتيجي هسه waxay ka hadlaysaa Soomaaliya qadar jirto waa isku dariya aan saadin sheegay hees kasto raash kombi ku waxta kale mooy fanaanka marka aad dhiirigelino waxay heestiisa fiislaan ka dareemaya marka qaybta commentiga idin soo dhigaya ku yaaca from second honestin oo qoro kumanaan fiisu gaarsiya let's go raashigano bilaaba haye maan katiiji maxaan leedahay bismillah dhiga maxaa waay Soomaaliya haye
tamasha kadina qabilkan fanina haye dhiiganu daadina dis Soomaaliya tan waa sheekadeena qabiilka faanina يعني Soomaaliya hadaan ahna waa dhaqankeena ina qabiilkeena ku faan qabiilka ku faan ceeb maaha qabiilku waa tacaarufo laakiin sida uu isticmaal anaga qof uu isticmaal malaha waan isku meesana this is Soomaaliya tamasha kadina qabilkan fanina dhiiganu daadina waan isku meesana waxa laga yaabaa ereyga uu leeyahay waan isku meesana la yaabta ana ku micneenayo laakiin Soomaaliya maanta gumeysa ka dhax jiro dhaxdeena isku meesana oo waxa jira qabiilo muslim oo nala dhashto walaaleen oo isdhalni oo la leeyahay lama guursan karo qabiilka ka carara adogo waa dad Soomaali oo salaadooda tukado soomo hadana la cusuriinay marka Soomaalida ugu waa isku meestaan waruntis yaa ku sheegay soo weydii kan gabnay dhalinyaro kaarteen waruntis yaa ku sheegay soo weydii wuxuu leeyahay warun waa gabnay kaalinteen dhalinyaro niyo dhalinyarada maxay kaalintooda qaataan oday 90 jir oo cimrigiisa soo qaatay ayaa Soomaaliya ka xasililaad dhalinyarada yaa jaanisiyo odayga gabla ah ayaa wuxuu rabaa inuu jaangooyo talada dalka marka dhalinyarada jaanis meeli karaan aniga soo waxa isdilo dhalinteena waruntis yaa ku sheegay soo weydii odageena bar qabiil baa shaarka xalinteena waruntis soo weydii sax iska diganina dhibis ilinteena wuxuu rabaa inuu qaato dilinteena waruntis yaa ku sheegay soo weydii wuxuu rabaa inuu qaato diisheena mudee warun tusaale hadda qof gacan ku dhiglo qof dilay ayaa la soo qabanaa odayaasha dhibkooda idin sheegaya qofkii gacan ku dhigla muxuu mudan yahay in la dilo ilaahay wuxuu leeyahay katabna calayha nafsa bin nafsi walakum fil qisas hayatin ya albab odaygi inta lacag soo qaado ayuu wuxuu la kulmayaa wiilkii qofka uu dilay odayaal ka socdo labada odayaal heshiina hoos wax la iska siina marka Soomaaliya wax dhibkooda odayaal waayo صح صح واي صح afkayga ma hawle markii waa run qabiil dirsi qof uma dilay imisa Soomaali ah ayaa qabiil dirtis loo dilay lama xisaabin karo saar xilidka qabiil waa sum waa runtiis صح waay waa runtiis yaa ku sheegay soo weydii iska saaro dheer xilidka qabiilka waa qurun والله Soomaaliya maanta waxa meesha dhiga waa qabiil wax kala ma had waddankaani ku noolahay waxa ku nool qowmiyado tira badan qabiilada waddanka ku nool waddanka ay joogo 130 ilaa 140 qabiil gaaraya saasay tan nabadgelyo lagu nool yahay ma arkaysid qabiil kala duulaan ku ah nabadgelyo lagu nool anagoo farxaan hebel dillo qof kasta qof kala aftiisa soo galay wala isnacib yahay soo weydii this is Soomaaliya وشكدنا قدر كم فانينا هيا ديجا ردادنا دغال اسكو فيريا this is Somalia كم وشكدنا صح قدر كم فانينا قدر كم فانينا ديجا ردادنا والسكو بسنا يروح هذا عدونا ما نقان صح ونضيف قبل كان ما نقان وعلي دلينا دانا قبيل ما نقان عدونا مني وصح رجال الصوماليات قلبكودنا waa nadiif oo maanta qof dhalinyaro Soomaali qabiil yaqaan mar laakiin odaya ka dambe waa la soo baraya wuxuu arkayaa oo dhaqameedkiisu qabiil kala duulaan ku ah wiilkii dhalinyarada ah isaga qabiilka lagu seef gareena maskaxda bilaadka laptopka amal waay marka dhalinyarada qabiil ma yaqaan hadii loo tashta meel isku keeno qabiil isku barnaayo صح دو بعد كانوا قدران مقدر جربا ودمته اون تدي درتي اقول لك كون مقدر جربا نقطه اقول ولكن نور قربان تقول مقدر جربا نقطه اقول بس شيء كل جود ما تكون dhalinyarada waa dhibay yihiin qaar tahriib ku dhinta qaar qarax lagu soo xiro le umada isku dhex qarxiya qaar mataqaana siyaabo kala duwan loo dilay qaar la qalday qaar wadamada shay ku xiran dhibka ugu weyn Soomaaliya ka dhacay dhalinyaro ku dhacay qof kale kuma dhicin si Soomaaliya tan waa sheekadina hadal kan faanina iga rudadina صح waan isku meesana si Soomaaliya tan waa sheekadina hadal kan faanina iga rudadina يعني tan waa sheekadina wuxuu ka wadaa inaa qabiil faanino dhiig u daadino qabiil dadku u dilno waa sheekadina ceebteena ma maqli jirtay waxaan ceebtaada meeyo waa caadadaada saas waayno waan isku meesana
كسبني ودنك إنه دم صح أنا كسبني شقينا وينه صح dad baa waxay ku leeyihiin wadankeena inuu burburo ajaniba ugu wacan ee waa lagu soo duulay Soomaali inay burburto Soomaali ugu wacan anaga is dhignay Mareykan lama yeelin Ethiopia sheegaysi lama yeelin anaga is dhignay meesha anaga iska qaadi karno waxba lagu marsiyoon shisheeye iyo fargelin wadamo caalam ma aha Soomaali meesha dhigtay anaga is dhignay anaga kasbanay inaan islayno sax waay walba ognahay ma aan iska dayno anaga kasbanay islayno waxba ognahay iska dayno warun maanta oo ujeedin Soomaali kala u baadilo maana qof cadaan ma Muqdisho qof ku dhex dilo anaga islayno anaga kasbanay waan ognahay ma iska dayno waa sax waa iska day karnaa qabalkii qurukana ma aan iska dayno qabalkii qurukana iska dayno waxaan ku soo aadnay xilin nolosha adoonta wadankana qof la aamino ay yartahay waxaa ku soo aadnoo xilin nolosha adagta wadankeena qof la aamino aysan jirinba yaa la aamina hadda waxa ka hadlay lamaan isguba iyo middo ninka ceeji ku dishay iyo yaa la aamina maanta lamaaniya is aamin laaba beerada ay dadka weynkaad ka aragtana wuxuu leeyahay dadka inay islaayaan wala fududaanig صح وش سويتي وحن سألني حيل ولا شأدرتي ودلتي نقف من أيرتي صح إني شغال عن قدرتي قبل دقيقة كوكوينت وينت أردنا وحلي يا تا أيي وأرنتي يا كوشة سويتي أيي وأرنتي يا كوشة سويتي هيا جعل ديجي بابا waayahay maanka horta heesta soo saartay waxa qada ka hadlaysa oo waxyaabaha Soomaaliya ka jira dhibaato taawt kora ka taawt Soomaaliya waxa haysto waa qabyaalad mana iska deynaa ana ku leeyahay ma dhaafayaan be waxa umeeleysa in la dhahe xididka nolosha ee qabyaaladu the brutes it's connected ma li jirto waa isku xirayeen alle halkaas ugu baxaya bal saddexdan labada qodob waxa kale naagta ninkeeda cidisay maxaa ku xukumayay naagta محل توقتا ليلاد مسهل عافية ليلاد قيد كلمة النودا مقالك سانوبل